dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay aniga waxaan ahay maamo dhibana ah oo qaraxii 28kii dhacay ex control gabarna ku weysay gabarna hadda garab taalo gabadha ka dhimatay magaceed gabadha dhaawaca magaceed gabadha iga dhimatay waxay Faadimo Maxamuud Axmed Allah u naxariisto gabadha noolna waxa waaye Aamina Maxamuud Axmed anoo saas u dhiban oo rafaadsan oo maxay ahayd murug iyo dhibaato ugu hayso oo labadii indhood aan fiirsanay ee midna dhacday midna ay saa u taalo ayaa maxay ahayd xaaladda hadda ay ku sugan tahay ka arki doontiin meediyaha baa waxaa la yiri inay baxdaan tigidka waa layna soo jaray waa inaad baxdaan haddaba xaaladda aan ku jirno iyo xaaladii maalintii hore la keenay qaybna waa laga qabtay wax dawladda Ankara khayr Allah siiyo waxbay nooga qabteen lagu weyn oo ka kabeen laakiin ma istaagi karaan xaalad marka ay ku istaagaan ilaa ay ka yeelatana fursad waa naloo diiday sidoo ku degdegsiya badan waa in la qaaday dhaheen habeen dambe 2 saac yaa yiri waa la qaadaa waxaana tiri safaaradda Soomaalida ee joogta Ankara annaguna markaan u celino oo dhahno walba xataa fursad ma siiya ay gabdhuhu ku istaagi karaan oo dhaqaatiirta aan noo weydiiyo annaga saxiixayna dhaheen waxba shaqo kuma lihiin soo iska bax way iga soo bixiyeen qolkii ayaga munaashaqooday ayaga dantooda gaaray saxiixina ayaga qaaday aan wax shaqo ku leeyahay ma leh haddaba waxaan ka codsanayaa dawladda sharafta leh maxay ahayd khayre iyo madaxweynaha dalka in ay wax ka qabtaan arrintan haddii ay cadaaladu jirto dhibanaan nahay dhibkeen waa in wax laga qabtaa waayahay saas ayaan ka codsanayaa dawladda waayahay maamada Soomaaliyeed aad u mahadsan tahay gabadheeda dhaawacana waa tana xaaladda lagu heedino waa sidan oo lagu la kala qaadi kara ma ahan sida ay dhaqaatiirtu sheegeen gabadha muuqaalkeeduna waa ka waan rajeynayaa in dad badan ay garanayaan maadaama ay dhiganayso jaamacadda Banaadir waxa kala joogta gabadhan kale oo iyaduna ay isku jaamacad ahaayeen sida ku muuqda wajigeeda dhaawacaas ku yaala iyaduna lagu hawaa sidoo kale way jaban yihiin oo xitaa wali kama istaagi karto in kastoo la daaweeyay waxaana loo sheegay in madaxa ay maaragtay wali firir kaga jiro gaarigii caasiga ahaa ee ex control afgooy ku gubtay ayaa laga soo saaray oo aad dareemi karto sida uu ahaa gabadhan ayaa walaasheeda gabadhan maaragtay kale dhaawacan soo dhawow cidda idin tiri waa laydin celinayaa iyo gabadha xaaladeeda nooga waran adoo soo koobay aniga waa magacayga Nasra Xasan cod kor noogu qaad aniga waa magacayga Nasra Xasan Xuseen ahna dhibane waa walaashay Farxiyo Xasan Xuseen xaaladeeda aad bay u liidataa lugaha operation amaliye ka gashay laakiin alxamdulillah waa lagu guuleystay caafimaadkeeda hadda waxay ruuroonyaa laakiin ma istaagi kartaa gabadha oo qof diyaarad raaci karta ma tahay maya waa qof xanuun haayo in yarka bacti xanuun ku dhagaayo dawladda safaaradda Soomaaliya waxay nagu rahaday tigidaan ila jaray waan ila celinayaa wadankeena ugu celinayaa dadkana ma ahan dad oo hadda in la celiyo hatta hadii ku dhow goormeel leeyina waa laabanaysiin aniga habeenta baa laabanaysiin 2 saac aan ugu dhahay caawana waa 4 saac bar hadda xilligan hadleen waa hagaag daawooyinka waa laga joojiyay xanuun baabiyadi laakiin waxaan u dhahay isbitaalka aniga saaray guriga kale aniga geenay 2 bir kadib baa ku soo laabanaysiin maanta isbedelkaas aragnay cabashadiina safaaradda un bay la xiriirtaa hadda iyo sidii la macaamish Soomaaliya waayahay waa hagaag aad bay u mahadsan yihiin waxaan rajeynayaa in maaragtay muuqaalkooda la arki doono lagana soo jawaabi doono arrintooda darta aad dhex taagantii ka soo baxa qoonyahow quraanka u soo noqdo qafaarya towbo dhaha Soomaali qalooxane qafrabag
qafrabag Soomaali qaloocan Biraz yan çevir. Yan çevir. Hadi hadi. Siz dışarı. Tamam. Allah ilahe yok. Yaslanın mı? أنا قبصة لا بدك جيس قبصة. لا بدك نلعب قبصة. لا أقوم خلينا قبصة. اصبر. Hızlı. Bir saniye ama bak içeri geçeceğiniz var. Hadi. göstermeyeydin kana ya. آمين آمين إن شاء الله وعافنا Aşağı indirelim değil mi? اسكتك اسكتك. دامي وحي وخذ مسكين لا وسمرة واحد مهم أنا قاعد هذا إنه لكلاتي نحن مسكين لا أبدوك وين مجددو شان هبرلاي Ya şurayı bir boşaltın. Bir rahat almanız. maxaa culumadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco qasaraha lagu farxaa أبا يستجي ما دمال ولا سلي جولا سندر كده magaalada la isla joogaa beş kişinin haricinde çıksın. waa duuba alxara Nasıl? waa ka qaat dadkaas duuba أبا يستجي ma dimal waa la isla joogaa سندر كده magaalada la isla joogaa beş kişinin haricinde çıksın. waa duuba alxara Nasıl? waa ka qaat dadkaas duuba maxaa culumadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco
khasaaraha lagu farxaa بسم الله مقعي وامين محمود احمد وعندي جامعه بنات وكسونا وعملتي اكس كنترول معاه اكس كنترول ولا شيء كان محمد احمد وكوي انا كان نافع كنا طالبين وقاعد صوت بيانا واي يا جماعه ما كنت دورتك صوتين وكنت انا وانا كنت ديارة راكب بينا ديارة راسي الى حق اسمها دولة وكون سنة وإبرز وزارة غير وحرق نسوق ضد بدن ورحمة ضد بدن واحد تبرعنا وكون سنة إن هذا كده الجنسية ودولة النقالية وتتكسس مع ديارة الحكام حتى وديارة الدفان والسوق هذه وحسن نقل أربعة أنا هو كان كريم شكل مهني كرنو dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofiba qof dhaliilayaa dalkiidinka qarribay بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم مانشستر waxaa lagu leeyahay ewer maruusano waa tahay akhyaarta qiimaha badan soo dhawaada كلي عاوة بلانتين وحيد سديد بركة عويسنمو وقتين ورنتي وعن فلا اللي جوجو مرة واحد بدن إن كوسي لرادو كلي وبرامج كوبنا نقدونا أو أن كجاه لأنه وحي شلي دعي إيو برامج كيدت كده وعيضها إيو قاب كي لو عليي عدي كدم بيسين العليو إيو واحد كلي في حلقان ayagoo runtii dhaawaca oo qaarkood aan istaagi karin in dadkaasi diyaarad la saaro sida xaqiiqda ah ayaan runtii barnaamijka rabaa inaan faaqido iyo waxyaabaha runtii soo dedejiyey dadkan in dib loo celiyo soo dhawaada kulley goordhow ayaan jeclahay inaan bilaabno waxaa sidoo kale aan gacanta ku hayaa mid ka mid ah heshiisyada quseeya ama loogu talagalay ama ay kala siixdeen wasaaradaha caafimaadka Soomaaliya iyo Turkiga ay kala siixdeen oo runtii la dhihi karo wuxuu wax weyn u tari karay dadka bukaanada ah ama dalka wax loogu ayuu wax badan anfici karay heshiiskan waana midda runtii dhamarka laga fiiriyo soo dedejisay in dadkaasi dib loo celiyo marka heshiiskan waxaa la saxiixay 2000 iyo waxaa la saxiixay 27 June 2013 kii ayaa la saxiixay waa heshiis dhanka caafimaadka quseeya wasiirka caafimaadka Turkiga Dr. Mehmet Muzinglu iyo wasiirada caafimaadka Soomaaliya Dr. Maryam Qasim Ahmed Minister of Human Development and Public Service ayaa saxiixday wasiirada arrimaha runtii marka barnaamijka jiro waxay tahay
kan waa usoo laaban doonaa heshiiskan dibaan ugu soo laaban doonaa heshiiskan dibaan ugu soo laaban doonaa bal waa hagaag codkaan ugu soo noqonaya umlena waa hagaag codkaa ugu soo noqonaya waa mahadsantaad adamisay marka waxaan ognahay dad dhaawacyo in la keenay oo runtii weerarkii ka dhacayay ex control afgooye in la keenay dalka turkiga gaar ahaan magaalada ankara markii ugu horeysayna ma aha oo dhaawacyo laga soo qaado soomaaliya oo la keeno turkiga la keeno markii ugu horeysa maaha waxaa ka horeeyey weerarkii 14 october ayaa ka horeeyey weerarkii 14 october ayaa ka horeeyey oo dad runtii halkan la keeno oo dhaawacyo kala gedisan qabay dadkaas si marka loo fiiriyo intoodii badan waa la daaweeyey marka laga tago hal qof oo baxsaday ama markii waxbarasho caafimaad loo ballan qaaday oo wasiirka caafimaadka waddanka turkiga oo ballanqaad caafimaad u sameeyey markii qofkuu la socday uu geeriyooday loo ballan qaaday ayuu waddanka ka baxsaday oo tahriib aaday isagoo waxbarashadiisa iyo meeshuu degi lahaa markii ballanqaadkaasi loo sameeyey midda kaloo jirto waxay tahay dadkay 14 october ayaan rabaa faahfaahin dheeraad inaan ka bixiyo kuwii shalayna waa u imaan doonaa dadkaasi qaarkood markay caafimaadeen oo xaaladoodii caafimaad ay noqotay mid 100% markay noqotay oo laga kaxeeyey waddanka laga kaxeeyey oo elboorka la geeyey oo la masaafuriyey oo waddanka dib loogu celiyey ayagoo socon kara ayaa waxaa dhacday in ay awoodi waayeen dadkaasi inay waddanka dib ugu soo laabtaan oo ay fiisa inay iskooda ay usoo qaataan ay soo baxaan ay yimaadaan turkiga jekin caafimaad ay dib ay u maraan elboorka waxaa laga dhigay warqado aysan waddanka kusoo geli karin oo ban ah oo mamnuuc ah oo 5 years ah oo 5 sano ah inaysan waddanka soo geli karin ayaa la dhigay waagaasi ilaa iyo arrintaa markay dhacday mas-uuliyiin kala gedisan oo dowladda soomaaliya oo xitaa ay ku jiraan dad wasiire ah ay ku jiraan iyo la taliyaal ay ku jiraan barnaamijkaasi waa loo bandhigay waan u sheegnay in dadkii 14 october haddii ay fiisooyin soo qaateen ay waddanka soo geli karin oo warqado ay ka yaalaan garoonka diyaaradaha magaalada istanbul dhowr qof dadkaas waxaa ku jira dad wariyaala ku jiray waxaa ka mid ahaa wariye cabdulqaadir okay oo VOA da u shaqeeya ka mid ahaa oo iyo dad kale aad runtii u dhibaateysnaa oo jekin caafimaad inay fiiso turkiga ama fiisaha markay safaaradda soo siisay ayagoo 6 ah waxaa laga celiyey garoonka diyaaradaha ee Ataturk ayaa laga celiyey oo magaalada Istanbul ciddii warqadaasi meesha dhigtay laga bilaabo waagaasi ilaa iyo muddo waa dabagelaynay runtii safaaradda mas-uuliyiin ka tirsan waa weydiinay waa ay ka gaabsadeen inay ka warbixiyaan marka waa dareemi kartiin culayska meesha ku jiro madaxdii sare iyo dad wasiire ay tiim kalena waa loo bandhigay dadkaasi inaysan jekin caafimaad oo iskooda inay waddanka ay u yimaadaan marka waa musiibo dadkaasi qaarkood indii iyo meelo kale waxay u aadeen jekin caafimaad ayagoo awoodi karay dhakhtarkii ku holana hooshooda ama barnaamijkoodii ku jiray in ay usoo laabtaan oo dib ay runtii ay loo baxnaaniyo qaarkood waxaa jiraba sawirada waa lasoo bandhigay ayagoo wiljeero lagu kaxeeyey marka dhibaatadu ma aha tii shalay oo keliya wixii dhacay ma aha 14 october wixii dhacay dadka dhaawacyada la keenay dhibaatadaasa ku dhacday ayagu intoodii badan waad wareysan kartaan oo waad weydiin kartaan ayagoo xamar joogo isoo waceen ayagoo garoonka lagu celiyey nala soo xiriireen waa awoodi weynay runtii anaga ka jaaliyad ahaan oo dadka waddankan degan oo Istanbul degan way awoodi waayeen dadkaasi 14 october ku dhaawacmay in aan elboorka ugu tagnaa soo celino faraa laga qaaday indaa laga qaaday gacmaha laga qaaday waxyaalo badan laga qaaday fiisii safaaradda turkiga markay soo siisay magaalada muqdisho marka way awoodi way markay kasoo degeen garoonka oo meeshii passport controlka markay tageen waxaa soo boodeen dadka inaysan waddanka soo geli karin marka dhibaatadaasaa jirtay
dadkii horeyna ku dhacday saameyn badan ay ku yeelatay arrintii shalay dhacaysayna dib waan usoo laaban doonaa dadka noo yimaadaan dhibaatooyinkaasoo idil marka waxyaalaha soo dedejiyey maxay tahay horta waxaad ogaataan in turkidu ama dowladda turkiga inay soomaaliya ay tagaan ay dad soo qaadaan ay keenaan turkiga la keeno lagu daaweeyo go-aankaasi ma aha go-aan ay leedahay annaga dowladdeena ama dowladda soomaaliya ay leedahay go-aanka ma aha go-aankan waa go-aan uu qaatay madaxweynaha waddanka turkiga Rajab Tayyip Erdogan waa go-aan asaga uu qaatay amarna uu ku bixiyey in wasaaradda caafimaadka turkiga ay dadkaasi la soo qaado la keeno turkiga la daaweeyo qarash walba ha ku baxo tikidhadooda googooda baagooda meeshay seexan lahayeen cunadooda caafimaadkooda kulli dowladda turkiga damaanadeeda iskale damaanadu horta ma laha dowladda soomaaliya waxa ayada ay dalbatay oo ay go-aan ay ku gaartay in dhaawacyo loo qaado oo turkiga loo keeno ma aha waad ogtihiin haddii ay dowladdu wax dalban lahayd wadamo fara badan qadra ugu soo sukaysa dhaawacyadii 14 October markay qaaday Suudaan ay ku turtay waa la soconay wixii dhacay dadka halka la keenana sidii loo daaweeyay waa la soconay ilaa iyo 5 isbitaal loo faarujiyay horta waxaan ogaanaa marka dadka aan fahansanayn dad badan aan arkay oo runtii su'aalo badan isoo weydiiyay marka waxaan rabaa inaad ka jahli baxdaan caawa su'aalihii badanaa ay soo weydiinayseen inaan idinka jahil bixiyo go-aanka qaadista dhaawacyada keenidooda turkiga iyo celintooda iyo daaweyntooda ay wax ku baxayo dowladda soomaaliya shaqo kuma laha go-aankaasi waxaa iska leh dowladda turkiga gaar ahaan turkiga waddankan sharci iyo kama dambeyn ayuu leeyahay iyo nidaam ayuu leeyahay wasaarad walba shaqadeeda gudanaysa wasiir ilaa iyo madaxweyne agaasime taliye kulli waxaa loo siman yahay systemka waddankan ayaa lagu shaqeynaya dadka badanaa marka la soo qaadan degdega lagu soo qaadaa waddanka marka la keeno ayagoo baasabooro haysan visa haysan migration soo marin ayaa waddanka la soo geliyaa baasaboorada waa laga qaadaa qolooyinka wasaaradda caafimaadka turkiga qaado waxaa gacanta laga saaraa safaaradda mas-uuliyiinteeda ayaa gacanta laga saaraa waxaa la yidhaahdaa haya ilaa ay dadkan ay kasoo caafimaadayaan dhaawacyadii 14 October markii la daaweeyey la baxnaaniyey waxaa la siiyey bil extra ah oo ay ku socon karaan oo caafimaadkooda oo okay ku noqon karo la siiyey fursad fiican la siiyey isbitaal Bulatli la dhaho oo magaalada Ankara banaankeeda ku yaala la dejiyey xagga la isugu geeyey halkaas lagu baxnaaniyey kadibna wasaaradda caafimaadka timid iyo qolooyin kale oo hay'adaha waddanka ka tirsan iyo safaaradda waxaa la geeyey elboorka sidaas lagu kaxeeyey waxa arintaasi markaasi howlwadeen ka ahaa nin la yiraahdo ama secretary ku-xigeenka ama xogeeyaha labaad ee safaaradda Masar Barqad iyo Xasan iyo team kale oo Xasan Qaclo ku jiro iyo team kale ayaa arintaasi waxay ka ahayeen howlwadeen si wanaagsan ku dhamaatay Soomaaliya la geeyay xitaa lacag loo aruuriyay la siiyay jaalida Soomaaliyeed ee waddankan lacag aad u badan aruurisay oo dadkaasi loogu deeqay oo markuu safiirka uu baaq u jeediyay ambassador Jaamac Aydiid baaqaasi way ka jawaabeen jaalidii lacag fara badan aruuriyeen waa la geeyay dadkaasi marka cilada ugu weyn ee ku dhacday waxay tahay magacyadii dadkii baxay liiskooda la qaaday elboorka la geeyay waxaa la yiri dadkan ma soo gali karaan 5 sano cidii sameysay ayada la weydiin doonaa madaxda sare ayada laga rabaa inay ogaato dadkii problemkaasi ku dhacayna dhaqaatiirtan waxay yiraahdeen soo laabta 5 bilood kadib marka waddankiina ku noqotiin jeekin caafimaad dib ugu soo laabta ayaa loo sheegay dhaawacyadii 14 October fiisooyinka marka soo qaateen elboorka laga celiyay elboorka turkiga laga celiyay waxa la yiri 5 sano waddanka ma soo gali kartaan mamnuuc idinka yahay dib dadkaasi marka elboorka ayagoo 9 sac soo safray adan dib loogu celiyay marka waa xanuun jira waay marka waxyaalaha dhacay inaan cashir ka barana la rabaa wixii shalay dhacay marka keenista dhaawacyada iyo celintooda iyo daaweyntooda qarashka ku baxayo wax walba cunadooda kulli mas'uuliyadda waxaa qaaday dowladda turkiga waxaana loo xil saaray wasaaradda caafimaadka waddankan ayaa loo xil saaray safaaradda Soomaaliya markii elboorka ay ka soo dageenna dokumentiyada lagu wareejiyay baasaboorada ayaa lagu wareejiyay baasabooradii ay hayaan oo kaliya safaaraddu waxay sameysay ololo fiican ay sameysay dadkii isku dawriday ardaydii jaaliyadii waddanka ku dhaqnayd baaqa la jeediyay lacag la soo aruuriyay jaaliyad Ankara ugu horeyso oo dhaqaale fiican soo aruurisay reer Istanbul ayagana dhaqaale fiican ay soo aruuriyeen community halkan joogo safaaradda lagu wareejiyay dadkii xilli qawi ee jaakada la siiyay
door fiicna la ciyaaray dokumentiga safaaradda loo dhiibay oo gacanta ayaa loo geliyey dadka marka cisbitaalada la geeyey waa la daaweynayay baxnaanintoodii qaarkood 3 maalin ka hor anigoo ka imid Ankara qaarkood waxaan u jeedaa ayagoo magaalada xitaa marayo nin markaasi nala socdaya salaame wuxuu noo sheegay inuu dadkaasi dad oday oo waayeel ah iyo wiilkiisi wuxuu sheegay wiilkaasi inuu odaygaas wiilkiisi inuu runtii dhaawac oo weerarkaas uu ka soo gaaray laakiin uu markaasi magaalada uu marayay magaaladu lugeynaya 4 maalin 3 maalin ka hor maran Ankara jiray meesha ulus la yiraahdo aagaas soonahaasi ayaan ku arkay team fara badan nala socday shalay marka dadkan in la celiyo oo la tago isbitaalka la tago la yiraahdo waan la celinayaa oo tigidhadii la soo jaro loo geeyo ay dadkan la yaab ay ku noqotay ujeedka bukaanadana ujeedkoodu wuxuu ahaa qof walba la keen wadanka inuu wadankii dib ugu laabto xogaa asagoo bukaana xanuunsan ma rabo wuxuu dalbanayaa in loo sameeyo wadanka degnaash in loo sameeyo ama permanent resident permit loo sameeyo resident permitna laguma sameyn karo degnaanshaha laguma sameyn karo passport qaleel ah waxaa lagu sameeyaa qofku inuu haysto visa entry inuu haysto waayo visa dalxiis inuu haysto kadibna degnaashu dalbanaya janiskaas maadaama dadkan baasaboorradooda oo si emergency loo soo kaxeeyo oo san visa aysan saarnayn markay fursad uma helayaan in loo sameeyo inay helaan resident inay helaan marka laazim inay wadanka ka baxaan waayo hadhowna ay soo galaan marka dhakhtarkii arrintan gacanta ku hayay wuxuu sheegay kiiska inuu dhamaaday dadkan ay xaaladooda okay tahay inta ooda badanna isbitaalka Rajab Erdogan ee xamar ku yaala ex digfer lagu dhamaystiri karo ayuu bixiyay information noocaas oo dhakhtarkii baxshay dhakhtarka markuu bixiyay wasaaradda caafimaadkii arrintii ka war heshay marka waxa lagu soo wargeliyay safaaradda dadka in la kaxeenayo ay tigidhadan ay diyaarsan yihiin wixii dhan ay diyaarsan waxa aan ka hadlaa waa siira waa xaqiiq waaye waa dhab waxaan ilaahay la ogyahay way waxaan ku daraya ma leh waxaan ka dhimaa mal cid aan runtii aan uga abiyeelayna ma jirto ama cid aan dhahayo ma jirto u naxariiso laakiin aadan uga xumaaday wixii shalay runtii hooyooyinka Soomaaliyeed dadkii dhaawaca ku dhacay aad i danqisay qofkii ugu horeeyay oo soo dhigay inuu ahaa ayagoo cawanayo cabashadoodii hooyada cabanaysa maama Shariif qofkii ugu horeeyay ee Facebook soo dhigay inuu kadib dadkii kale markaas aaday laakiin baaritaan badan markaan sameeyay xaqiiqda arrintan anigoo experience badan u lahaa 14 October-na la socday systemka wadankan aan si fiican ula socdo ayaa waxa ay soo baxday safaaraddan la xiriiray ambassadorkan la xiriiray wuxuu ii cadeeyay waxa inaysan shaqo ku lahayn ka safaarad ahaan ay shaqo ku lahayn mas'uuliyiin wasaaradda caafimaadka ka tirsan ilaa iyo shalay la xiriirayay iyo qaar dhaqaatiirta ka mid ah waxay sheegeen go'aankan inuu yahay go'aan ka yimid wasaaradda caafimaadka laakiin ay fursad ay u furan tahay dowladda Soomaaliya waliba waxa ku darsataan xilliga dadkan la celinayay oo shalay duhurkii ahayd wadanka waxaa joogtay marwada koowaad ee wadanka Marwo Zainab oo ilaa haatan ku sugan waliba shalay waxay kulan la lahayd wasiirka caafimaadka Turkiga meelo kala gedisanay booqatay meeshaasi Janis ayaa ka furnaa Janiska oo meeshaas ka furnaa wuxuu ahaa go'aanka celista waxa iska lahaa horta dowladda Turkiga iska leh taas shaki kuma jiro haddii celinayso sida ku celinayso ayada markii hore ayada keentay ayada celinayso wadanka waxa la socnaa dhaqaalihiisa sicir bar badana runtii iska jiro oo dhaqaalihii sidii la rabay ma aha qof walba markuu ka fikirayaa qofka bukaanka dhaqaalaha gelinaysid wuu ka fikirayaa iyo meesha jiifanaya wuu ka fikirayaa marka safaaradana dambi ayada ma laha laakiin safaaradda hal meel ka soo galaysaa dambi dowladda Soomaaliya hal dambi ay leedahay mas'uuliyiintii kale oo marwada wadanka Soomaaliya ugu horeyso wadanka shalay booqanaysayna ayadana dhinaceeda gaab yara ka jiray gaabka jira wuxuu ahaa shalay arrinta waa la baajin karay maxaa loo baajin karay fursad dowladda Turkiga waxaan ka codsan karnay ama ambassadorka awood wuxuu u leeyahay inuu warqad u qoro wasaaradda caafimaadka uu ka dalbado in dadkan ayaga ay la wareegaan ka dowlad Soomaali ahaan laakiin safaaraddu dhaqaalo ma haysato oo dadkan ay ku daaweynayso dadkan haddii maanta ay damaanad qaado ka safaaradda dhaqaale ahaan dhaqaaleed waxaan ognahay safaaradda naftirkeeda in la kabo ay dowladda Turkiga ay wax ku kabto mishaaraadkooda la kabo waxyaalo badan laga kabo laga caawiyo dadka baasaboorada samaysan dhaqaalaha yar laga qaado in safaaradda lagu kabaan la soconaa awoodeeda ma saamaxaynin in dadkan ay damaanad qaado cisbitaal kale ay u wareejiso laakiin awood waxay u lahayd oo meesha ay ka soo galayso dhaliisheeda waxay tahay inay warqad
qorto oo ay tiraahdo dadkan mas-uuliyaddeeda anagaa xambaarayna ama madaxda sare ee dalka inay u gudbiso ee la soo hadlaan turkiga wasaaradda caafimaadka soomaaliya ay la soo hadasho wasiirka caafimaadka ama marwada koowaad shalay markii wasiirka caafimaadka ay la kulmaysay ay ka codsato dadkan in fursad la siiyo aan la celinin fursad la siiyo oo la yiraahdo waxaan idinka codsanaynaa dadkan ma socon karaan sidii 14 October dadka sidii fursadda bil extra loogu daray inaad fursad u siisaan wixii qarash aan anaga la baxayna oo cisbitaalada dawladda Turkiga waxay ka cararayaan dadka maadaama waqtigooda u dhamaaday ee meesha inay sii jiifaan oo bukaano badan wadankan ay jiraan cisbitaal dawladna uu yahay dhaqaale badan uu baxay qarash badan ay galeen saas la jigid waxay ka doorbideen maadaama intaan waxa lagu dhameystiri karaa cisbitaalkii kale ee Soomaaliya ay ku lahaayeen dhaqaatiir Turkiga jooga halkaas laga fikirayay saas la jigid anaga jaaniska Soomaaliya ama dawladeena ay dhumiso wuxuu yahay ama safaaradeen ay beeldarayso wuxuu yahay inay codsi ay furto ay tiraahdo dadkan extra time waqti dheeraad ah hala si ma socon karaan ee xitaa isbitaalka lagu booqdo shalay duhurkii ahayd ayagana xal iyo baxeen dhaliishaas safaaradda way leedahay way ka soo galaysaa dhaliishaas marwada koowaad oo la kulantay maxaan ku yiraahdaa wasiirka caafimaadka wadanka Turkigana way leedahay madaxda sare qeyb ay ku leeyihiin wali dad kala jiifa dadkan kala jiifa tan way dhacday laakiin dadkan kala jiifa in laga sii fikiro aad u wanaagsan tahay midda kale muhiimka ahna waxa weeye in dadkii shalay la celiyay awood waxay u leeyihiin fiisa iskood inay soo qaataan ay wadanka soo galaan in aan warqad laga dhigin elborka migrationka in aan warqad laga dhigin bil caleeg in warqad laga dhigin elborka sida ku dhacday dadkii 14 October ilaa ay haatan wadanka soo gali karin yaan warqad laga dhigin yaa dad dambiilaha laga dhigin way awoodi karaan ama dawladda hadda birto ama ehelkooda hadda biraan ama qaraabadooda hadda biraan ama Soomaaliya isku tagto hooyadaasi ooynaysa iyo gabdhaheeda in ay fiisa inay soo qaataan ay Turkiga soo galaan ay deganaansho ay qaataan ay isbitaalka ay isku daawayaan 5 days ku qaadan kartaa wax weyn maaha laakiin waxa daran in warqad la dhigo halkaas la yiraahdo ma soo gali karaan waxa ka shaqeynayaan in la ogaado waa waajib in la ogaado ma safaaradda mise waa dad kale ma Turkida mise waa safaaradda in la xaqiijiyo wasaaradda caafimaadka Turkiga ma warqadaasi dhigtay ma safaaradda waxaan ka dambeysay taa in la ogaado dhacdadaas dhacday inaysan mar kale dib u dhicin saaxiibayaal waxaa jiro arrimaha horta sidaas isku saarayeen marka waa laga wanaagsan yahay waxyaalaha qaar aflagaadada iyo wixii waa laga wanaagsan yahay go'aan walba oo dhacayana dadii u taala Soomaaliya $1 kuma darsan waxay ku darsatay mar dadka loo soo qaado waa loo keenay waa loo daaweeyay arintii ciriiriye noqotay waxyaalo badan dhaqaalaha laga fikiraya dad badan oo wadanka imaanaya waxyaalo badan arintaas ay noqotay marka arinta kale muhiimka waxay tahay anaga ka Soomaali ahaan dawladda Turkiga iyo Soomaaliya heshiisyo badan oo dhanka caafimaadka oo dadka danyarta wax looga qaban kara la saxeexay heshiiskan hadda aan gacanta ku hayo waxa la saxeexay 27 June 2013 la saxeexay waxaana kala saxeexday wasaaradda caafimaadka Soomaaliya iyo Turkiga waa heshiis waxtar leh oo faa'iido u leh dadka Soomaaliyeed oo 5 sano soconayay hal qof oo muwaadin Soomaaliyeed oo danyar ah oo wadanka wax looga qaban karin loogama faa'iideyn waa nasiib daradana haysata heshiisyada dhacaya oo ma wadankan aan la galayno aan ka faa'iideysanayn waxaad kale ku darsataa heshiisyada wadankan la galayo Turkida heshiis walba dhankoodii qosay wadankeena inay tagaan heshiiskooda way ka miro dhaliyaan laakiin annaga kama miro dhalino kama faa'iideysano heshiiskan qof walba Soomaali ah oo wadanka aan waxba looga qaban faa'iido u ahaan lahaa 5 sano 2013 ilaa ay haatan cid looga faa'iideeyay male sidaas oo ku dhacay xitaa waxa uu furan yahay heshiiska in dib loo cusboonaysiiyo wax ka faa'iideystayna male war imisa qofood oo dalkaasi wadankeena ku xanuunsan oo lacag aan haysan dhaqaale aan haysan oo maanta heshiiskan haddii looga faa'iideyn lahaa wadankan la keeni lahaa oo caafimaadkooda waxbarashadooda caafimaadkooda iyo diyaaradooda go-aan baagooda iyo wax walba loo qabo heshiiskaas qoray fiiri article-kan oo heshiiska horta heshiiskan waxaa saxiixay Dictorezo Maryam Qasim Ahmed saxiixday 27 June 2013 la saxiixay dhanka Turkigana waxa uu saxiixay Minister of Health wasiirka caafimaadka Dr. Mehmet Muzinglu ayaa u saxiixay 2013 14 15 16 17 u dhacay heshiiskan waa la isbeenaysiin karay lagama faa'iideysan marka heshiiska fiir qodobada uu qoraya waa muhiim
kolley waxaan doonayaa wax walba inaad la socotaan marka in dhaawacyadana dib loo celiyo anaga isku keennay turkida aad u mahadsanyihin wax badan noo qabteen laakiin annaga ma aan ka faa'iidaysan waxyaalihiina laga rabay fursadahooda ayaga heshiisyadooda waa laga miro dhaliyaa laakiin annaga kuwayni wasiiraa baxaya wasiir kalaa imaanaya heshiiskii sidaasa lagu ilaawayaa qodobada ugu muhiimsan heshiiskan ku jiraan raba mid ka mid ah oo arrintan ka hadlaysa inaan bal idiin sheego waxaa muhiim ah qof walba oo muwaadin soomaaliyeed ah inuu la socdo wadciga waddankiisa ama xaalka waddanka inuu la socdo waa lagama maarmaan waxaan rajeynayaa inaad filimkan ama barnaamijkan la sii wadaagtaan asxaabtiina arrintaana inay madaxda sare ee waddankana ay ku baraarugaan 2013 dad badan oo xanuunsanaa waddanka la keenay oo dhibaateysan qaarkood ayagoo cisbitaal ku jiray isaga geeriyoodeen waa la aasay waa looga faa'iideyn kari loogama faa'iideyn qaar waddankii ayagoo xanuunsan oo cudurro qabo la soo qaadi karay asoo heshiiska la fulinaya hal lacag ku baxaysa ma leh bukaanka waxba lagama rabo qarash lagama rabo tigid lagama rabo lacag hospital lagama rabo cunno waa looga faa'iideyn karay wasiirkii la bedelay 4 wasiira ka dambeysay waa laga tagay wasiir Maryam Qaasin ugu dambeysay wasiirada waa laga tagay wasiirada haatan joogta Fawziyo Dr. Fawziya waa la wadaagay heshiiska waxay ugu tiri baarlamaanka hor yaala waxaana la rajeynayaa in la meel mariyo ilaa haatanna waa la meel marinayaa waa la sugayaa wali waana dhacay heshiiskan heshiisyada kale ee waddankan aan ka laga faa'iideysan way badan yihiin qodobkan aan rabay aan inaan idiin sheego article number 5 patient treatment daaweynta qofka bukaanka ayuu qeexayaa articlekan waxaa lagu caddeeyey waxaa la yidhi the minister of health of the republic of turkey wasiirka caafimaadka ee dowladda turkiga shall provide wuxuu bixinayaa free treatment daaweyn lacag la-aana each year sanad walba for 250 patient 250 ruux oo daaweyn lacag la-aana dowladda turkiga wasaaraddeeda ama wasiirka minister of health bixinayo who cannot treated in Somalia kuwaas aan lagu daaweyn karin Soomaaliya kuwa aan lagu daaweyn karin 250 ruux aan lagu daaweyn karin Soomaaliya daaweyntooda 250 ruux la soo qaadaya sanad walba oo dadkan Soomaaliya lagu daaweyn karin 5 sano oo min 250 ku dhufo imise qof ka faa'iideysan lahayd oo danyar ah oo xanuunsan oo dalka wax looga qaban karin xabad lama hayo wax laga faa'iido ma leh dowladii tan ka horeysa heshiiskan saxiixday 2013 wax laga faa'iideyna ma jirto dowladdan meeshii la rabay inay dabagashana wax dabagalayna ma jirto waa 250 ruux ay noqon lahayd in looga faa'iideeyo waxa la yidhi the selection of the patient shall be made by the minister of human development dadka la siinayo caafimaadkaasi waxaa soo xulaya wasaaradda caafimaadka waxay ahayd markaasi waagaas waxay ahayd minister of human development and public service wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo the Turkish embassy in Somalia iyo safaaradda Turkiga ay ku leedahay xamar ay arrimahan fududeynayaan dhanka fiisooyinka iyo dadka xilistooda laakiin waxaan heshiiskan lagama faa'iideysan asxaabay ama dadka Soomaaliyeed dhibaataan ugu socota qaraxaan ugu socda problemaan ugu socda dadkii waa dhibaataysan yihiin qofku soo qaaday adigoo aan shilin ku darsan sidoo uu ku yeela wuu ku keenaa waa lagu daaweynaa haddii uu u arko inaad caafimaadina wuu ku celinaya madaxdaada ka hadli karin safaaradaada ka hadli karin cid kale ka hadli karin qof kale ka hadli kara male laanno ada waa lagu keenay waa lagu daaweynaya waa lagu celinaya marka waxaan wanaagsan barnaamijyada noocan oo kale inaan si wanaagsan aan u dhuuxno heshiiskanna waxaan jeclaan lahaa weli waa furan Janis wuxuu u furan yahay in dib loo cusboonaysiiyo loogana faa'iideeyo dadka danyarta ah oo masaakiinta ah ama dadkeena Soomaaliyeed ee waqtiga uu ka hiliyay oo dawlad la'aanta ay ku dhacday in heshiiskan looga faa'iideeyo safaaradda Soomaaliya ee Turkiga ama safaaradda Soomaaliya magaalada Ankara door weyn shaqo badan ay qabataa budgetkeedii ama dhaqaalaheedu waa iska yar yahay culays badan haysta laakiin ayadan waxa laga rabaa heshiisyada noocan oo kale ah in wasaaradaha ku shaqo leh inay ku dabagasho waa muhiim oo looga faa'iideeyo
heshiiska sidoo kale waxaa ku jira xitaa in qalabeyn badan la sameeyo oo dowladda turkiga ay naga caawiso wax badan. fiiri qaraxa dhacay waxaa la raadinayaa dhiig, bangiga dhiigga 2013 la saxiixay. maxaa uga faa'iideysan weyn in dowladda turkiga aan ka codsano bangi dhiig heshiiskana qoraaye ma laga faa'iideysto? waxaa leeyahay waxaa loo baahayaa dhiig o A+ loo baahay isbitaal hebel laga doonaya. waxyaalaha aan macnaha laga xishoodo oo aan annaga ka Soomaali ahaan aan ku hormarin waxaas ka mid ah. lama rabo marka in la iska qalqeeliyo micno dar loo cabaado lama rabo. war 14 October dhiigan raadinayni anagoo heshiiskan ka faa'iideysan karno waa dowlad weyn oo wax walba leh isbitaal haysata bangi dhiigna ma lihin. waxaan raadinaynaa marka inaan dhahno waxaan u baahannahay dhiig A+ Facebook lagu soo qoro isbitaal hebel waxa laga rabaa dhiig noocaas ah. waa wax laga xishoodo waa. marka heshiiskan cidda qusaysa ama cidda uu qusay heshiiskan caafimaad oo full ah oo dhameystiran dib ha loo cusboonaysiiyo halkaana lagu qeexaya in dib loo cusboonaysiin karo. heshiiska ha la cusboonaysiiyo. dowladda ha laga faa'iideysto heshiisyada ayaga nala galayaan Turkida ay nala galayaan way ka faa'iideystaan. waa laga faa'iideystaa. wax badan ay wadanka ay ka sameeyeen shaqooyin badan ay qabtaan waa ku amaanaynaa. laakiin dhibaatada ayaga ma aha ee waa annaga. wasiir heshiis saxiixay bariyo baxaya warqadii hore u qaadanaya. lagama faa'iideysanayo. kii kalluumaysiga xaq ugu dambeeyay. suuqi weynaa la sheegay in la dhahay suuq weyn oo isku xireeyo Yurub iyo Afrika iyo Soomaaliya laga siinayo wadanka Turkiga oo wasiirkii kalluumaysiga hore u saxiixay. kalluunka Soomaaliya la keenaya. wasiirkii waa la bedel xaq ugu dambeeyay. meel uu ku dambeeyay lama yaqaan. markaas waxaan ka fikiraynaa waxaan micno lahayn laga fikiraya. wadankan fursado fara badan wadankeena uga banaan waa looga faa'iideyn karaa. waxyaalo badan ka banaan wax laga faa'iiday ma jirto. annaga is haysana dhaawacyada waa la celiyay kan waa la celiyay dhaawacyada soo qaadidooda iyo keenistooda maxaan ka faa'iidnay? dhaawacyada way noo keeneen way ku amaanaynaa. foostiin agtodada noo keeneen waa ku amaanaynaa. waxyaalo badan noo sameeyeen laakiin annaga yaan abaal dhicin. marka waxaan rabnaa in heshiiskan iyo heshiisyada la mid ah oo wadanka faa'iido u leh cidda qusaysa in ay ka miro dhaliso waa lagama maarmaan. dowladdu waa dowladdeena waxaana waajib nagu ah dowlad walba wadankeena timaado inaan madaxa saarano inaan taageerno qaladaadkeedna loo sheego. waxyaalaha dowladaha wadankeena soo mar ay ku fashilmaan number 1 waxaa ka mid ah heshiisyada saxiixo laga tago. kuwa aad u fara badanaa jiro. waxaa jira marka heshiisyadaas marka laga tago waxaa jira heshiisyo laga faa'iideystay oo si sax ah looga faa'iideysanayo. kaasna waa heshiiska tababarada ciidanka hadday noqon lahayd military ama hadday noqon lahayd kuwa kale kaas si fiican looga faa'iideystay. laakiin kaas ciidan oo qusaya arrimihii bulshada waa ka dhimanay wax aan ku hayna ma leh. heshiiskan qeexitaankiisa waa kala hadlay wasiiradda saxiixday Maryam Qaasim. waan la hadlay waxay ii sheegtay heshiiskaasi in aan waxba looga faa'iideysan oo aan laga miro dhalin ayna ku wareejisay wasiiradii ka dambeeyay kuwaasna meesha lagu ilaaway. wasiiradda Dr. Fawziyana inaysan ayadana meel marin heshiiskan. marka waxaa wanaagsan dadka bukaanada ah ee la keenayo oo in aan caawino oo aan fursad aan siino oo wax badan aan ka caawinaa wanaagsan si aan xaaladoodii iyo waxyaalihii kale u baahan yihiin markaasi aan laga caawiyo. jaalida Soomaaliyeed ee ku nool wadanka door wanaagsan ayay ciyaareen way ku amaanan yihiin. waxaan rajaynaynaa dadkaasi shalay la celiyay iyo kuwa dambe la celi doonaba oo dowladda Turkiga go'aanka iskale iyo haddii la baajin karo in la baajiyo oo warqad loo qoro la yiraahdo bal fursad kale hala siiyo. laakiin dadka Soomaaliya shalay aaday in fiisaha ku soo noqoshadooda runtii la fududeeyo rajaynaynaa si bari warqadna laga dhigin elborka sidii kuwii 14 October ay ku dhacdo oo kale inaysan ku dhicin. marka intaas ayaan kusoo koobaya barnaamijkan. waxaan rajaynayaa wixii kale oo dulduleela ah iyo wixii kale oo wadanka ka jiro oo problema oo Soomaalidu ku saabsanna kulley waa idla wadaagi doonaa. laakiin xaqiiqda jirto waa intaasaan runtii aan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo. waadna mahadsantihiin sida wanaagsan barnaamijka la socoteen. waxaan rajaynayaa cidda barnaamijkan uu quseeyo inaad la sii wadaagtaan fursadaha ama heshiisyada wadankaana inaan ka faa'iideysano. inta ka horeysna waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Thank you.
هيا